ilaa intii ay burburtay dowladii Soomaaliya waxa uu soo qaxay dalka Yemen oo isaga qudhiisa hada dagaalka oogan yahay 100,000 Soomaali ah oo degay carruurna ku dhalay carruurtii halkan ku dhalatay kuna barbaartay ayaa qaar badan oo kamid ah waxa ay dhameysteen waxbarashada ilaa heer jaamacadeed ardaydan ayaa ka cabanaya shaqo la'aan ba'an iyaga oo shaqo ku heleenin shahaadooyinka ay sitaan iyo takhasusada ay leeyihiin dhalinyarada aqoon-yahanada ah ayaa ka sheeganaya in shahaadooyinka ay wataan loo tixgelinin shaqo lagu siinaynin markii ay u shaqo doontaan xafiisyada iyo hay'adaha ka jira dalkan halka dhalinyarada ayaga la mid ah ee u dhalatay wadanka ee wata shahaadooyinka oo kale ay shaqo ka helaan shaqo la'aantan ay ku qasabtay dhalinyaro badan oo shahaadooyin sare sita in ay ka shaqeeyaan shaqooyin ka duwan cilmigii ay soo barteen halka ay u tahriiban una xamaal tagaan dalka ay dalkan dariska yihiin ee Sacuudiga halka qaarkoodna u tahriiban dalka Yurub waxa waraysilayeen gudoomiyaha ardayda oo noo sheegay sidatan marka fursooyinka waxa kamid ah in ardayga 2 sano ayuu helay ama saddex ama laba sano wuxuu helaa 2 sano ama 3 sano helaa xagga intersos 3 sano ma ku dhamaysto ama 2 sano ma ku dhamaysto ardaygii u qaabilsanaa inuu helo wax oo shaqo ah ama wax oo magaciisa horumar ah oo waalidiinta ama dintiisa oo horumar lahaa ayaa waxa ka imaanayso xaq shaqaale inay jirin fursooyin inay jirin isla markaas loo adeegsado inuu yahay ninka Soomaali oo yahay bitaaqada qaxootiga oo loo qaadanay bitaaqada shakhsiga ama muwaadinka Yemen ku sugan marka saddex nooc ay qabeen nin dhameystiray oo waalidiintiisa ama dadkiisa garab istaagay ee nin joojiyay laakiin waxa u badneed inta badan inay joojiyaan duruufta saxda waa adagta nin qaxootiga isla markaas ay tahay inuu garabkiisa oo ka taageero ama support garan way adagta isla markaas ay tahay diyaar u ah mustaqbalkooda inay wax ay ka gaaraan maxaan dhigta jaamacadda faculty of education sanadka saddexaad runtii haddaan isku dayo inaan ka hadlo dhibaatooyinka maraya xuntiga ama hadda aan marno maahan mid lagu sheegi karo ama lagu xisi karo hal fadhi lagu dhameystiri karo dhibaatooyinkan aad ay badan yihiin waxaana kamid ah haddaan isku dayo qayb kamid inaan ka sheego dhanka shaqo la'aanta dhanka waxbarashada yar iyo safaaradda oo ka maqan qaybteeda runtii dhinaca dhanka waxbarashada ardayda 90% Soomaaliyeed way wada dhameeyeen dhinaca thanawida school secondary wada dhameeyeen mana helaan si u badan yihiin jaamacado sababtoo ah safaaradii ay waxsin jirtay course bixin jirtay ilaa 10-20 ay bixin jirtay haddana dagaal suuqaysa u dhaceen way istaageen inkastoo ay ahayd kurastaas midaan ahayn dacmi ama taakuleen lagu siiyo ardayda hadda qayb ardayda kamid waxa u istaajiyeen inuu go'ay dacmkii ama leeraha ay bixin jireen leerihii inay awoodin inay bixiyaan dacmkaas إن دتك أو هاد أو جامعة وين دكتان على الفاضي يعني شغل مهاستان وح مهاستان يعني أهلي وح منفع كران يعني نفس الوقت بالحالتين هذه دكتان هذه دقن السيم واي يعني إن دعم للسيو أو يعني إنه جامعة بليش مكان ما هو حلم يعني حلم اللي هنا حقيقيا هو حرم يعني بلد كني هو صعود يا كل واحد يعني جامعة على الفاضي مولودين وحاس جد لها إنه وح نساعدان إن أنا كشباب هذا جيلك هذا هني إني الدعم نسيان أو تعليم تصور ما يسمى شقيال أو جامعيال شقيال هنو إن يعني هو صعنا. مركي أنا أسكت دينه إن هذا واحد برا أو يو على إذا على في النهار سهل وأيوة مركي كنت قف قلنا جبيان سكول كأما جامعة سكول قلنا جبيان وحالة سيا أفر إلا إيشان قفوت أي جامعات هنا أفرت إيشان تكلم دبير أي كل ما يستمع عمري يقول مركا تاسو waxay keentaa inay dhalinyarada fasaad ay noqdaan jaad cunow darooga gadow waxyaabo loo baahneen baawur dhaqow gabdhaha walaalaheena inay soo qadaameystaan gabar ayaa qadaamo inta loo wato waxa maqlaysaa maanta dambe waa la waayay kaliya laga la baxay waa la qalay dhibaatooyin badan ayaa jiro doorka Soomaaliya run ahaantii waa naga maqan yahay hadii aan nahay dhalinyarada ku nool Soomaaliya Yemen ku nool tan kale arabina ka hadlaa waxay tahay in culays noola saaro kuraasta dowladda Soomaaliyeed ee u bixiso Suudaan iyo Turkiga iyo meelahaas dhalinyaro waxaan haynaa waxbarasho u baahan ahaantii u hankacay inay wax bartaan kuwa wax bartay 4 nasiib ku helay jaamacadaha markay jaamacadaha soo dhameeyaan ay isku dayaan inay jaamacad shahaadooyinkooda ku shaqeystaan waxa loogu jawaabaa Soomaali baa tahay dalka anaga aan joogno dadkii lahaa baa baahan iska daa anaga martida ahayn يعني ظروف عاد أفر بدن أي جستا كدب هذا تان ويولي بهار وحيوها هذه سكول يعني جامعات هذه أنا لما سدابة أنا شقك لها لأنه وحن أوجد يعني شباب عاد أفر بدن يعني وهرت الجامعات وضع لمين هذا تاني ويود فريان قبله قاركود شخ خدام أي آذان وليش قاركود يعني باول أي مسحان قاركود دودن سوماليات
waxaan arsal ahaan u diray hadii ay maqlayaan in ardayda joojiyeen jaamacadooda ay u joojiyeen bisabab duruuf ay u joojiyeen waxaan oo sheegayaa in ardayda dhan ay soo wada celiyaan oo wax dhaqaale ah oo bilaaban yani wax dhalinyaradan ayaa aada ugu walwalsan ugana niyad jabsan mustaqbalkooda maadaama dalkii ay ku dhasheen kuna barbaareen laga doonaynin halka midkii ay asal ahaan kasoo jeedeen waxa ay kala kulmi doonaan war iyo wacaalan ahayn waxa ayna madaxda dowladda Soomaaliya iyo qunsuliyadda guud ee magaalada Cadan ka codsadeen in ay taakuleeyaan. Maxamed Jelani, Somali News, Yemen, Cadan.